mudanayaasha sharafta leh horteeda soo fadhiya gudoomiyaha haweynta iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa wasaaradda qorsheynta waxaan wasaaradda qorsheyntu waa wasaaradda aad u ballaaran wasaaradaha had iyo jeer bayska u ah qarannimada maaha inagoo keliyaba caalamkaba waa muraayadda laga arko dowladnimada wasaaradda qorsheynta waxyaabaha imika aanu maanka ku haynay ugu weyn waxaa ka mid ah qorshihii guud ee horumarinta qaranka ee 5 sannadood soo socda 5 sannadood ee hore way dhammaadeen 5tii dambeenu imika bilaabaynaa insha Allah biidnillah qorshahan ugu talagalay waxa la yiraahdaa NDP2 National Development Plan oo ah kii labaad Soomaaliya imika kii waxay samaysanaysaa kii koowaad laakiin inagu kii labaad baynu maraynaa kii labaad waxaanu anagoo ka duulaynaa kii hore waxyaabihii qaradaadka ayaan ka galay ama reviewgii aanu ku samaynay baanu ku salaynay waxaanu filaynaa insha Allah biidnillah waxaanu imika soo gabagabaynaynaa maanta ugu dambeysay kii governorska 9 workshop baanu qabanay muddo 12 bilood uu soo socday 7 gobolada dhan baa la soo maray si fiican ayuu processkaas u socdaa waxaanu draftingkiisii bilaabaynaa bishan April bartankeeda first draft-kana waxaanu keenaynaa oo kolle ka soo qayb gali doontaan shirguddoonkiina uu iman doona 1 bisha May si aan uga horeyno shirka ka dhacaya London ee Soomaaliya loo qabanayo ee pledge-ka lagu samaynayo waqtigii hore waxa la oran jiray SSA bayna loo sameeyay Somaliland Special Arrangement ayaynu sanduuqan SDF-ta iyo wixii caawimo aynu ku helnay imikana shirka London maadaama aanu ka qayb galayn laakiin aan wax la tagno weeye waxaan culays badan saarintii aan wasaaradda joogay in NDP2 inuu naga dhamaado waxaanu ku dhowiyay dhamaad imika insha Allah biidnillah bisha koodeeda Mayna isagoo first draft-kiisi waa qaybin doonaa insha Allah waa aimka ugu weyn ee imika aanu leenahay qarankan waa lagu horumarin karaa ama waxa ugu weyn ee ugu mudan ee wasaaradda qabato waxa kaloo jira wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka waxa ogeydeen barigii dhaweeyay abaaru inagu dhaceen xogaa mess baa jiray in hay'adihii ay kala goonaayeen gudida abaaru oo laba si parallel ay u shaqeynayeen waxaanu ka shaqeynaa inaanu midayno cududda waxbixineed ee hay'adaha caalamiga hadday tahay UN agencies-ka iyo hadday tahay international NGOs-ka waa ku guuleysanay gudida abaaraha iyo waanu midaynay inay meel ka wada jaan qaadaan gobolladoo dhan si fiican bay uga wada shaqeynayaan dhammaan hay'ad kasta hay'adaha waddanka jooga hadday wax bixinayaan overlapping-kii dhacayay waxa laga yaabaa burco duruqsi oo kale Save Children wax geysay gudida abaaruhu inay geyso waxa laga yaabaa bakiye wax geeyeen inay iyaguna haddana geeyaan marka waxaanu sameynay center point baanu sameynay laga wada duulo kaasa wixii ay hayaan hay'adaha iyo wixii ay hayaan dawladdu ayaanu isugu geynaa halkaasaan distribution ka sameynaa taasina waxa weeye waa waxyaabaha imika had iyo jeer aan ku guuleysanay wasaaradahan wasaaradda qorsheynta qaranku waxay u xil saarantahay dhammaan wax alaala wixii horumarina ee qarankani uu hiigsanayo sanadkan 5 sannadood soo socda waxaanu filaynaa wax fara badan oo xagga horumarka ku saabsan hadday tahay horumarka imika ka socda dhammaan wadamada dibadda World Bank oo imika soo jeesto CC Orayn waxa iyaguna imika si fiican inugu soo jeestay EUD maadaama UK ama Europe ay ka sii baxayaan qoladii waxa aad inugu yimi oo habeen saddexaadkii waftigii ugu ballaadnaa ee ka yimaada Germany Jarmalkoo doonaya imika inuu qaato kaalintii liirka ee UK ay ku lahaan jirtay EU inuu qaato isagana albaabadan u furay waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo aynu aragno inay waddankan maalgashi ku sameynayaan ama horumar ka wadaan gacmaynu ku soo wada dhaweynaynaa waxaan filayaa insha Allah biidnillah idinkuna waxa la wixii shuruuca ee wanaagsan wax u tar leh ina qalinka ku duugi doontaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi